waxa ay ahayd maalin farxad u ardayda Dalsan College waxa ay ahayd maalin bisha barakeysan ee Ramadaan ay soo dhaweynayeen maamulka iyo macallimiinta Dalsan College waxa ay ahayd maalintii 40 arday ay gudoomeen shahaadadii muddo dheer ay sugayeen inay ka qaataan tacliintii ay barteen maanta ayaa kulansatay gudoonka koobkii tartankii soo socday shantii bilood iyo qalinjabintii ardaydii baranaysay kombiyuutarka iyo saxaafadda munaasabadan oo muddo la qaban qaabinaya ayaa waxaa ka soo qayb galay rugcadaayo dhanka saxaafadda qoraayo waalidiin iyo saxafiyiin gobolka laga yaqaan abwaano iyo culumaadiin wariye xasan kuuriyo oo kamid ahaa bahdii ka hawlgali jirtay idaacaddii qarankii Soomaaliya xilligii dawladii dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay sida loogu baahan yahay isbedel dhinacyo badan waxaana ardayda uu ku booriyay inay yihiin madaxdii maanta laakiin aanay ahayn madaxdii berito isagoo sii daba dhigay in dhaqanka Soomaaliya marnaba aan loo baahnayn in laga tago هذه يجر دلنيرadu waa madaxdii berito ma ahana waa kuwii maanta weeye war iska qabta odayaasheeda ما هي المدحدي بري مدحدي ما تاتين كوا بري تاتين إذا كوا كلا إذا كدبا إيمانيا كوا صد ما يشوف بنانيسان وإلا يصبروا إن طريقة لا يصبرنايو هذا سلا هل كان يجسوا موقتا إن الحكم بالدشان أيضا كل حرتا إن أيضا كل حرتا وتجينا هنا دوشان دون دار لكن تنحدة شعلادة إله بن كدارية شعلادة ما يجي شانيتا inkastoo muddo yar uu jiro Dalsan haddana waxa ku jirta hanaanka hirgelinta dadka doonaya inay bartaan cilmi ay ku meel maraan waxaana Kenya jooga dad badan oo dugaal nabdeed u soo raadsaday hase ahaatee taasi ay u weheliso cilmi doon Maxamed Cabdirashiid oo kamid ah barayaasha Dalsan College ayaa waxa uu ka hadlay ujeedka loo aasaasay iskuulka waxa sidoo kale isna ka hadlay macallin Kisiolo oo isna kamid ah macallimiinta Kenyaanka ay wax ka dhiga iskuulka Dalsan waxaana ardayda uu ku booriyay in barashada cilmiga ay si laba jibaaraan Dalsan Community College waa macad aad u ballaaran oo lagu barto luqadaha sida Englishka, Kiswahiliga, Arabiga, mathematicska iyo maadooyin fara badan run ahaantii iskuulku wuxuu socday waqti muddo hal sano iyo bar ah college we are so happy to be here today because actually this is for our cause. You know that Dalsan Community College began only this year. Burhan Mohammed Jaamac Garasow waa maamulka Dalsan College waxaana uu sheegay in maanta tani ay qayb ka tahay inay gaareen himiladii ay muddaba ku taamayeen walow uu sheegay inay dhiman tahay wali hayaan dheer oo la sugayo Dalsan waa ogtiin inaan ku soo dadaalnay waxaan ugu soo dadaalnay si ka badan sida caadiga ah waayo waxaan la shaqeynay waa ardaydeennii ayagoo isku taxluujiyay inay si kastaba ha ku qaadateen magaaladan Nairobi xaafadda Islii in laga hirgeliyo dad kala duwan iskuul ay dhigayaan kadibna la isfahmo bulshada Soomaaliyeedna dhaqankeeda ay ka tagin annagana aan ku guubaabinay in halkan ku soo bandhigaan dhaqanka TV-ga Royal oo kamid ah saxaafadii madasha laga casuumay ayaa waxa maamulka iyo shaqaalaha TV-ga ay sheegeen in mar walba ay u taagan yihiin sidii ay u gacan qaban lahaayeen bulshada saxafi kasta oo saxaafadda ku soo biirana ay gacan qabanayaan maadaama TV-gu uu ku qotomo dhexdhexaadnimo hase ahaatee waxa magaca Royal iyo kan Dalsanba ku hadlay Maxamed Cusmaan Cumar Xabiib iskuulka Dalsan waa iskuul hadafkiisu ahaa in sare loo qaado waxbarashada dadka ma ahayn in lacag ka sameeyno waa dareemi kartaan dad yar oo jecel dalkooda inay horumariyaan laakiin qaar badan waxa laga yaabaa inay dhahaan xabiib waa beentiis lacag ay rabaan laakiin reality waxa fahmi kara qofka meesha jooga hadafkeenu waa sare in loo qaado waxbarashada hadafkeenu waa in la mideeyo Ibrahim Geedo Cawaale Bibo ardayda saxaafadda barato shaqo ugu horeeya dhamaantiin waad maasantihiin iskuulka Dalsan barashada cilmiga waxa uu sii dheer tacliinta hidaha iyo dhaqanka taasoo wadada u xaareysa in cilmi kasta lagu laro dhaqanka Soomaalida waxaana ardaydii xirnaa dharka hidaha iyo dhaqanka ay madasha ku soo bandhigeen riwaayad Soomaalinimo salka ku haysa Soomaali baana intigeena waa mid siyaasadaha dunida dhinaca baan ku joognaa suuradaha Quraanka sidriga ku sidana sunnadii rasuulkana waan ka wada simanahay su'aal way taaganay Soomaaliya tigtay waa maxay
qaar ka mid ah ardaydii la guddoonsiiyey shahaadooyinka iyo hadiyadaha ayaa waxay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin maadaama ay gaareen himiladii ay hiigsanayeen oo waxa uu la kacsan yahay farxad waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in aan ka qalin jabinayo macahadka college-ka Dalsan Community College oo aan ku qalin jabinayo maadada journalismka ama waxa loo yaqaan saxaafadda wariyeynimada aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan shahaadada maanta ka qaato ay macallimiinteeda iyo guddoonsiiyaan waxaan uga mahadcelinayaa ilaahay ka sokoona waxaan ka mahadcelinayaa macallimiinteeda muddada dheer ku soo rafaaday ama ku soo dadaalka weyn ku soo bixiyay ay heerkan ay soo gaarsiiyaan maantana aan taaganahay heerkii xirfadeyda aan ku shaqaysan lahaa ama dadka wax ku bari lahaa aad iyo aad ayaan ugu sanahay in aan shahaadadii saxaafadnimo aan intaas san u soo ahmiyay inaan maanta gacanta ku dhigo waxaan rajaynayaa haduu Ilaahay raa in aan guul wanaagsan ka gaar oo aan ku shaqeysto salaamu calaykum inta xafladeedii inay tahay waxaan kaloo u mahadcelinayaa macallimiinteyda always ka orange me waxaan kaloo marka wada waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay marka labaad macallimiinteyda marka labaadna waxaan u sii mahadcelinayaa waalidiinteyda oo mar walba igu sii dhiirigeliyo inay waxbarashadeeda sii wato waxaan jeclaa insha Allah improve ku sameeyo waan salaamatiin royalty dalsan waa ku faraxsanahay ilaa ay harka sare aan ka gaaro masterkayga in aan sii wado journalismka waxaan kale u mahadcelinayaa baa saxaafadda oo nagu dhiirigelin in aan si aad u sii wadano iyo especially Royal TV aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaantiinba magacaygu waa Leila Sheekh Umar waxaan ka tirsanaa ardayda ka qalin jabisa saxaafadda waxaan macallimiinteyda dhammaantood iyo waliba sidoo kale maamulka waan ku faraxsanahay in waxaan rajaynayaa insha Allah in heer ka gaaro magacay waa Nasriya Sinnahaal waxaan ka qalin jabshay maantay saxaafadda waxaan aad ugu faraxsanahay macallimiinteeda dadaalka miiran siiyay gaar ahaan macallinkayga Maxamed Cusmaan iyo macallinkayga Ibrahim Biiba sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Sucaad iyo Mawlid waa mahadsantiin gunaanadkii xafladda ayaa ahayd mid la isku booriyay cabsida Alle iyo ka faa'iideysiga bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana madasha ka bilowday qaybinta shahaadooyinka iyo hadiyadaha iyadoo kooxdii guuleysatay ay si habsami leh u guddoomeen koobkii ay ku guuleysteen muddo 5 bilood ka bacdiya waxa ardayda u suurtooday inay guddoomaan koobkii ay u soo halgamayeen waxa sidoo kale u suurtooday inay helaan shahaadada cilmiga ay barteen Sucaad Mira Maxamed Royal TV Nairobi